بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا سورة الكهف أيام كسر عشرين aayadda 83 ayuu darsigani ka bilaabanaya qisadii nabi muuse calayhi salaam iyo khadir dhex martay ayaa inoo dambaysay qisadaas intaynaan darsigeena maanta gelin arrimo dhowra ayaan doonaynaa inaan isdul taagno تكوبات waxay tahay khadir ma nabigu ahaa mise wali waa mas'alo lagu muransan yahay oo la isku khilaafsan yahay laakiin sida sawaabka u dhow ee xoog badan waxa weey inuu khadir u ahaa nabi ilaahay anbiyadiisa kamid sidaana quraanka daahirkiisa laga faa'iideysanaya qisada markuu gabagabeynayo wuxuu yiri وما فعلته عن أمري حدوثا أمر كيسا كسامينين أمر إلهي بكسامينين أمر إلهي نوالا سوغارسي حدي الله سبحانه وتعالى أمر كيسا لسوغارسي وملك الله صدرين وار نبي تكالي نبي الله موسى عليه السلام وكمد الرسول شمت أغفل لبنان ولي علمي أراد سلامتهن cidda uu cilmi u raadsanayo waa inuu yahay nabi sidiisoo kale ama wali u raadso waxay leeyihiin culimadu waa arrin aan suroobi karin taasi waa midda waa sida xoog badan talabaadi waxa weeye khadir ma nool yahay mise waa dhintay ayadana waa mas'alo laga murmo oo culimada qaarkood ay ka doodaan iyadana sawaabkeedu waxa weeyaan iyo sideeda saxda ah khadir inuusan noolayn oo uu dhintay sidaana nusuusta qur'aanka iyo sunnada daahirkooda laga fahmayaa wama jacalna libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum alkhalidun nabiga waxaa lagu yidhi sal lla alay wasalam cid hortaa waaritaan ilaahay u yeelay ma jiro cid inay joogto oo iska noolaato loogu talagalay ma jiro khadir qolyahaasuu soo gelayaa aan loogu talagelin inay waaraan waa mid labaad rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu saxaabada ku yidhi maalin maalmaha ka mid a laga bilaabo hadda 100 sano markay soo wareegto dhulka dushiisa inta ku noolay wax ku noolaan doono ma jira buu nabi sallallahu alayhi wasallam hadduu xataa la yidhaahdo nebi maxamed buu soo gaadhay xadiiskaasuu gelaya saas daraaddeed dhulka dushiisa hadduu joogay 100 sano kama dib marin oo waa dhintay waxaa kaleetooba sii cadaynaya haddii uu noolaan lahaa oo nebi maxamed soo gaari lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebiga inuu rumeeyo u yimaado oo raaco saxaabadiisa ka mid noqdo dagaalada la galo buu ku qasbanaan lahaa waxaa nabigana wuxuu yidhi sal lla lay wasalam nebi muuse hadduu noolaan lahaa uma banaanaateen inuu i rumeeyo mooyaane waa nebi muuse waana ballantaa soo marno suuratu ali cimraan ilaahay uu nebiyadii rususha ka qaaday haddii nebi ka dambeeya lasoo diro inay macnaa wax way raacayaan oo rumaynayaan marka haddii ay dhici lahayd inuu nebiga u yimi sal lla alay wasalam oo rumeeyey oo uu dagaaladii kala qayb galayna waa la soo guurin lahaa oo saxaabadu way sheegi lahaayeen ma dhicin marka si walba hadalka u dhige khadir ma noola xilligii ilaahay ugu talagalay buu dhintay subxana wa tacaala ninkii waa nool yahay sheegtana waa inuuna iska yidhi mooye wax daliil iyo xujo looma hayo kutusaya khadir inuu nool yahay khuraafo badan baa laga ratibay noloshiiso yani waa nool yahay barakuuna wataa hala raadiyo wixii mara cadba oo habeenka ugu soo baxaba in la yidhahdo waa khadir wax ka doono ilaa heerkaasay gaadhay marka waa khuraafo aansan lahayn oo khadir ma noolaa masalada kale meesha ku jirta waxay tahay meeshaas aynu soo marnay qisada rabbi markuu ka warramay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nabiyullaahi khadir calayhi salaam
wuxuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma agtanada ayaanu cilmi ka barnay buu rabbi subxana watacaala cilmi agtanada ka ahaaday baanu barnay. halkaas ayaa iyadana iyo qisada khadir iyo muuse dhex martay ayaa iyadana waxaa laga ratibay oo laga dhaliyey cilmiga loo yaqaano cilmulbaatinka oo ay ku baloobeen oo ku fitnoobeen qolyahan suufiyada ah. cilmulbaatin cilmi yidhahdaa jiray dheh ama cilmu laduni bay dhahaan. cilmi ladunigu waxa weeye waxay u yaqaanaan waa hawaska qalbiga, waa wax qalbiga kusoo dhacaya oon allah oo uu cilmigu ka imaanayo iyo qalbigaaga uu kusoo dhacayo wax u dhexeeya jirin. rasuulna laguguma soo dhiibin, malagna looma soo dhiibin, toos buu kuugu imaanahayaa, qalbigaaguu kusoo dhacaya. waa cilmi noocaas oo amar leh, nahyi leh, akhlaaq leh, yacni xalaal iyo xaaraamayn leh, yacni qaab dhaqan leh. cilmiga noocaas oo loo yaqaano cilmi laduniga u yaqaan ama cilmi baatinka la yidhaahdo ayay isagana meeshaas qisadaasi ka qaateen oo waxay yidhaahdeen qisadu waxay ku tusaysaa inuu jiro cilmi qarsoon oo ka gedisan midkay rusushu la yimaadeen, kii kutubta kusoo degay aan ahayn. waxay yidhaahdeen kan kutubta kusoo degay waxaa loogu talagalay dadka caamada ah iyo culimada cilmi daahirka taqaan, laakiin cilmi awliyadu taqaanoon lala aqoonin baa jira. baxar buxuurka mid yidhaahdo waa bad aan la geli karin. khudnaa baxran waqafa alambiyaau saaxilahu bay dhahan. waxaanu tiimbannay bad ay nebiyadii xeebteeda istaageen, bad ayna nebiyadii gelin yaanu annagu gudaheeda muqurana bay dhahan. amaa nebiyadii iyagu xeebtay istaageen oo kasoo noqdeen. cilmigaa laduniga ay u bixiyeen wuxuu keenayaa daahirka sharaa'icdii rusushu ay la yimaadeen inay khilaafi karaan. waxayna ku saleeyeen khadirba wuxuu khilaafay tawreed daahirkeedii buu khilaafay. waxay leeyihiin nebi muuse wuxuu yaqaanay cilmiga cilmu daahirka la yidhahda, khadirna muxuu yaqaanay cilmiga cilmi baatinka la yidhahda. saas daraaddeed waa kaa muuse ku wareeray. muuse cilmu baatinkiibuu ku wareeray bay dheh. awliyadu marka silkigay haysatay iyo meeshay la haysato waa cilmi baatinka khadir laga soo gaadhay oo waasac ah. waa midda ay yidhaahdaan xadathanii qalbii can rabbii, qalbigaygaa ii warramay oo rabbi iiga warramay. oo aaway sanadkii iyo xadiiskii iyo nebi maxamed beedna ka soo gaadhnay iyo aaway malakul jibriil baa usoo dhiibay waxaasoo dhan isagu uu ka gudbay. waa furu waay, toos waay. isagu laalaad iyo yani waxa weeye toos buu ilaahay uga qaadanaya. cilmiga noocaasi marka cilmi baatinka ay u bixiyaan ama cilmi laduniga ay u bixiyaan waa baatil, bal huwa kufrun wa zandaqatun waay. culimadii islaamka oo dhan baana isku waafaqay cilmi baatin baa la yidhahda, laduni baa jira ama cilmulbaatin baa jira. ninkii yidhaahda oo yidhaahda shareecada islaamka daahirkeeda aniga waa la ii ogolyahay inaan ka baxo oo aan khilaafo si aan anoo cilmulbaatinka ku socda, ninkii sidaa yidhaahda inuu kaafir yahay. yustataab fain taaba wailaa yuqtal. waa ijmac. war toobad keen baa la dhihi waad gaalowday. hadduu toobad keeni waayo qoortaa loo casaynaya, leanna waa murtad. sooma waa murtad. marka cilmuladuni shareecada khilaafsani ma jiro. waa khuraafo wadaadada suufiyadii la yimaadeen, bal hullaatu suufiya la yimid. suufiyada kooda sii xag jira baa la yimid waxaa si ay mukhaalafaadkooda iyo khaladaadka ay galahayaan ugu bannaystaan oy jid ugu jeexdaan oon loo dhihin war shareecadii baad khilaaftay, war wadaadiiba aayadaasaad garab martay, war wadaadiiba xadiiskii nabigaad garab martay, si aan loo dhihin baa waxay samaysteen waxa la yidhaahdo cilmuladuni baa jiro oo aydaan garanaynin. aamusa waxay dhahaan markaad la joogto macnaha aad ninka naxwada yaqaana la joogto carabkaagaa la ilaashadaa bay dhahan. ninka fiqiga yaqaana markaad la joogtona afcaashaadaa la ilaashada. awliyada markaad la fadhidana qalbigaagaa la ilaashada. limaada? lianna waxa weye qalbigaagu ogyahay sir uurku baallo wey. cilmi ladunigii iyo wixii cilmulbaatinkiibuu ku ogyahay waxaad samayn doonta, waxa dhici doona, waxa uu ku kici doona, waxa qalbigaaga ku jira. marka waa khuraafaadaan san lahayn. mid salaadii ka tago waxaad arkaysaa aanba food dhigaynin. war maxaa kugu dhacay? qalinkii baa layga dulqaado cilmibaatin baan ku jira.
saas shirkiyaadkan iyo kufriyaadkan ka buuxa munaaqibka oo aragteen kufri ka weyn kufriga munaaqibka ku yaala adduunka ma soo marin xataa kufrigii fircoon heerka ma gaadhin kufriga munaaqibka ku yaala waxaa lagu difaacay mataqaanaa waa cilmul baadin oo wadaado ma fahansanid waa waxaydaan fahmayn baxar buxuurkii awliyada wey taasaa lagu odhanaya kufri oo dhan marka waxaa la hoosgooyey cilmul laduni iyo cilmul baatin hal su-aala haddaad weydiisaan wadaadada waa ku filanta oo tiraadaan war hee dhaha idinka ma khadir baa rasuul idiin ah mise nebi maxamed baa rasuul idiin ah ya hadday dhahaan anagu khadirin baa rasuul noo ahay nebi maxamed nabada khuseeyaba ma gaaloobayaan mise ma gaaloobayaan waa gaaloobayaan qaطcan hadday yidhaahdaan nebi maxamed baan anagu rasuul noo ana shareecaduu la yimid waatan raace khadirii wuxuu samey waxba idinkama gelina soo saas ma jawaabta u taalataa wey ama khadir baa wax qarsoon sheegay nebi muuse garan waaye iyo warkaa ka baxa xaqiiqana waxa weeye saddexda mas'ale ee dhex martay nebi muuse iyo khadir dhex martay mid walba markii laysdul taago shareecadeenna maba khilaafsanaba sooma maxay waatan soo sheegnay midii ugu horraysay oo ahaa doonta in la kharaabiyo oo wax laga fujiyo si inteeda kale ay u badbaado shareecada islaamka ay waafaqsanta sooma xoolihii in qaarkii laysku furto qaar la bixiyo si qaarka kale loo badbaadiyo diinteena may khilaafsan tahay bal way waafaqsanta mas'alada labaad haddii la ogaado ruuxani inuu sabab u noqonayo muslimiinta gaalaysiintooda iyo inuu diinta ka saaro gaalnimo u saaro riddo u saaro waxay shareecadu leedahay hala dilo umay diinteena marka khilaafsan tahay tanna wiilkii yarkaa maadaama sabab uu noqonayo waalidiintii inay gaaloobaan in la dilo shareecada qabto laakiin halka meelay wax ku jiraan waxa weeye see lagu ogaani inuu gaal yahay waalidiintiina gaalnimo u saari rabo ilahay unbaa taa laga ogaan karaa subxana wa tacala sooma laakiin haddii la ogaado shareecadeena lafteeda saasay leedahay masalada saddexaad oo ah derbiga la toosiyey dad hadday ku xumeeyaan inaad u samafasho miyaa fiican mise inaad ka ficil la qaadato inaad u samafasho sooma haddaan la kala rooraanin rumado haddii lagaa seexday dadka u samafal shareecadeena soo saama qabto xaggee mukhaalafadu ku jirta awey cilmulbaatinka iyo cilmuladunigu awey wadaadadu xaggeed kala baxdeen ma jiro khuraafaad uun xaaraam oo dhan lagu banaysanayo shirkiyaadka lagu banaysanayo diinta in lagu khilaafo lagu garamaro wadaadadu ay u samaysteen inay ku banaystaan un weye mooye sal iyo raad kuma laha bal waa riddatun wa zandaqatun wa kufrun buwaxwa gaalnimo cad wey ninkii yidhaahda cilmuladuni baa jira ama cilmulbaatin baa jira diinta daahirkeeda garam marsan waa murtad salaadna gadaashiisa ku asixi mayso laguma daba tukan karo wax salaada ilahay ka aqbali maayo subxana wa tacala saas wey maana culimada islamka waa isla ogoli akriya imaam alqurtubi caleyh raxmatullah nuquusha uu soo guurinaya iyo culimadu waxay ka yidhahdeen taa intaan kaga baxno marka wayas'aluunaka can dilqarnayn qisadan waa qisadii shanaad ama afraad wey walba sidii loo tiriy oo suuraddu ay soo aroorisay wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebigo can dilqarnayni dilqarnayn bay wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa sa'atluu waan akrin doonaa calaykum dushiinaan ku akrin minhu xaggiisa xaaluu ka ahaaday dikran xusitaan waxbaan idinka sheegi innaa anagu buu rabbi yihi subxaana wa tacaala makannaa waan makaninay lahu isaga waxaan u makaninay fil ardi dhulka dhexdiisa waan hansiinay wa aataynaahu waxaanu siinay min kulli shayin shay walba xaggiisa waxaanu ka siinay sababan sabab baan ka siinay yani shay kasta xaggiisa waxaan ka siinay sabab uu dantiisa ku gaadho fa atbaca marka wuxuu raacay dulqarnayn sababan sabab buu raacay xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba ashamsi qoraxdu meeshay ku dhacdo qoraxda makaanu dhicitaankeeda markuu gaadhay wajadahaa qoraxdii ayuu helay taqrubu iyadoo dhacaysa fii caynin il dhexdeeda iyadoo ku dhacaysa ishaasoo xami'atin dhoobo madow ah yani jiimis ah ama dhoobo madow ah wawajada wuxuu helay dulqarnayn cindahaa ishaa agteeda wuxuu ka helay qawman qowm buu ka helay qulnaa marka waxaanu nidhi yaa dalqarnayni dulqarnaynow ima an tucadiba inaad cadaabto dadka wa ima an tattakhida ama inaad ka samaysato fiihim dhexdooda xusnan wanaag
labadaa kaa doonto samey imaa an tucadib inaad cadaabto ciqaabto iyo inaad dhexdooda wanaag samaysato labadaaba waad leedahay wey macnaha qisadan dulqarnayn waxay ka mid ah arrimihii nabiga la weydiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida qur-aanka ka muuqata waa la weydiiyey ninkaas oo qiso cajiiba lahaa bal ka warran baa leeyahay ninkan wuxuu ka mid ahaa yacni hogaamiyeyaashii iyo madaxdii adduunka soo maray nin dhulmareen oo wuxuu ahaa aada u cagsho badan mu'min ah oo allah rumeeyey subxaana wa tacaala xadiis baa nabigeena ka sugan sal alla alay wasalam uu leeyahay ma garanayo tubac inuu nebi ahaa iyo in kale dulqarnayn inuu nebi ahaa iyo in kale ma ogi buu nabigu lehy salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu nebi maxamed garan waayo minagaa garan kara ma garanayo laakiin qur-aanku wuxuu sheegay oo nin boqor ah madax ah awood ilaahay siiyey subxaana wa tacaala dhulka maray inuu ahaa mu'minna ah saasuu qur-aanku sheegay qisadan marka waxaa tusaale lagu siinaya dadka madaxda ah awoodda madaxnimada see loo isticmaalaa awoodda madaxnimada dhankee loo jiheeyaa waxaa qisadu maadaama nimankii reer quraysheed iyo wadcigii muslimiintu markaa ay ku jireen laga hadlayo war reer quraysheedow madaxnimadan iyo awooddan iyo odaytinimadan aad sheeganaysaan waa laydinka horreeyey qaabkan aad u wadaan oo in nebi ilaahay iyo diinta lagula dagaalamayo tawxiidkana ma ahee madaxnimada awooddeeda si kalaa loo dhigaa qaab kalaa loo wajahaa dadkaa lagu anfacaa tawxiidkaa lagu faafiyaa dulmigaa lagu hor istaagaa cadaaladdaa lagu taxqiijiyaa ninkii madaxa ahaa madaxnimadiisa iyo dowladnimada meeshuu u jeedin lahaa baa loo sheegaya iyo inuusan ku kadsoomin madaxnimada wuxuu ka mid yahay marka dulqarnayn adduunka raggii soo maray ee madaxnimadooda ugu ballaadhnayd ayuu ka mid yahay isagii nabiyullaahi sulaymaan iyo calayhi salaam sidii qur-aanku sheegay ayuu ka mid yahay macnaha ayib marka nabiga sal alay wasalam qisadii baa loo faahfaahinay qisadii baa loo sheegaya maadaama su-aal ahaan ay ku timid oo lagu xujeeyey nabiga sal alay wasalam allah baa ka jawaabay way ku weydiinayaan baa lidulqarnayn waxaad tidhaahdaa sheegid iyo xusitaan baan idinku dul akrin doonaa waa tan soo socota rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi ninkaasi dhulka ayaanu hansiinay makkannaa lahu fi lardi dhulkaanu hansiinoon makaninay gacantaa loo geliyay dhulka waxaanu siinay shay walba xaggiisa waxaan ka siinay sabab waxaa laga wadaa sababka waxaa la yidhahdaa asalkiisa xadhiggaa la dhahaa laakiin waxaa loo isticmaalaa shay kasta oo shay kale lagu gaadho dantaada iyo ujeedadaada wixii ku gaadhsiiyaba sabab baa la dhahaa haddaad baabuur fuusho ood magaalada ku tagto waa sabab haddaad diyaarad raacdood hawadaa ku gasho dantaada ku gaadho waa sabab haddaad baadjiil caydhsato waa sabab haddaad lugayso waa sabab wax kasta oo dantaada aad ku gaadho sabab baa la dhahaa rabbi marka wuxuu lehy subxana wa tacaala shay kasta oo uu doonayo sababtuu ku gaadhi lahaa baan siinay talow sababtaasi maxay ma diyaaraday ahaayeen ma baabuur bay ahaayeen ma tareemay ahaayeen ma waxyaabo kaley ahaayeen miyuu duuli jiray allahu aclam laakiin qur-aanku wuxuu yidhi shay kasta oo uu rabo sabab baan ka siinay bu rabbi subxana wa tacala sababtii uu ku gaadhi lahaa ayaanu siinaya wasiiladii macnaha sabab buu marka raacay asbaabtaa la siiyey ee uu danihiisa ku gaadho mid ka mida ayuu raacay oo dabagalay xaggee buu aaday markaa dhanka qorax ka soo bax buu u dhaqaaqay markuu gaadhay meeshii qoraxdu ku dhacaysay ayuu wuxuu helay qoraxdii oo dhacayso il biyo a dhexdeeda ku dhacaysa ishaasoo dhoobo madow xami'atin yani dhoobada madow baa le waatan soo marnay meeshaas qoraxdu ay ku dhacayso isha madow ay ku dhacayso agteeda wuxuu ugu tegey qowm dad buu ugu tegey dad baa meeshaa deganaa dadkaa markuu u tegey rabbi wuxuu leeya waxaan ku nidhi dulqarnaynow laba mid khiyaar baad u leedahay imaa dadkaa inaad cadaabto iyo inaad dhexdooda wanaag samayso labadaa kaa doontaba samey khiyaar baad leedahay baa layidhi saas way macana ayib maqriba shamsiga marka qoraxdu meeshay ku dhacayso wuxuu helay ishii yani qoraxdii oo ku dhacaysa il dhooba madow macnaha waxaa laga wadaa markaad badda xeebteeda taagan tahay qoraxduna ay dhacayso baddiina ay xagga qorax dhac kaa xigto waxaad u qaadanaysaa oy kula noqonaysaa inay qoraxdii ku dhacayso biyaha dhexdooda soo ma waa say adiga ishaada kula tahay wa ilaa qorax ka soo bax meel dhulka ka mid a oy qoraxdu ka soo baxda ma jiro
meel dhulka ka mid oo qorraxdu gashana ma jiro soo qorraxdu way wareegtaa dhulka oo banooni ahaan u samaysan bay qorraxdu ku wareegtaa soo dhanka waxaynu u naqaanaa qorrax ka soo baxa soo maxaa yeele qorraxdaa inagaga timaada marka ina dhaaftana xaggaasi ku dambaysaa qorrax dhac baynu u naqaanaa waa inagu saan u haysaniya bini aadamku sida ishiisu u muuqato way amaa meel qorraxdu gasho iyo meel dhulka ka mid oy ka soo baxdo ma jiro inay saas tahayna waxaad ku garan marka adduunka dhankiisaas ay qorraxdu kor joogto adigii waa kaa maqanta haddana qolay kor joogta haddana say u socto qolo kale kor joogta qolo unbay kor joogta adduunka ka mid meelay gashaayo ma jiro waxaa laga wadaa marka ishiisa sida u muuqatay qorraxdii waxay la noqotay il biyo ah oo dhoobo madow inay dhex gashay wa ficlan markaad badda qarkeeda taagan tahay saasay qorraxdu kula muuqanaysa saas unbay kula muuqan waxaa la leeyahay marka waxay u badan tahay inay tahay dhankaa iyo badda atlantica xaggeeda ama badda cad dhankeeda inuu meeshaa tegay halkaana ay tahay meesha ay u muuqato qorraxdii inay il biyo ah oo dhoobadeedu madowdahay inay dhex gashay macnaa saasaa la leeyahay ayib wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can dilqarnayn xaggiisay ku wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa sa'atluu waan akrin doonaa calaykum dushiina minhu xaggiisa dikran xusitaan baan idinkaga akrin yani sheegid iyo xusitaan baan idinkaga akriyo waxbaan idin sheegi doonaa wey idinka sheegi doonaa innaa anagubu rabbi yihi subxana watacaala makannaa waan u makanin oo waan hansiinay lahu isaga fil ardi dhulka dhexdiisaan hansiinay shayga marka si dhaba lagugu gacan geliyo ayaa tamkiinka la yidhahda wa aataynaahu waanu siinay min kulli shayin shay kasta xaggiisa waxaan ka siinay sababan yani sabab uu dantiisa u maro ku gaadho sabab uu dantiisa ku gaadho shay kastoo uu maagan yaho rababa sababtuu u mari lahaydee gaadhsiin lahayd baanu ka siinay bu rabbi subxana wa tacaala fa atbaca markaasuu raacay sababan sabab ka mid a asbaabtaan siinay buu raacay xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shamsi qoraxdu makaanu dhicitaankeeda meeshay ku dhacdo markuu gaadhay wajadahaa qoraxdii ayuu helay taqrubu iyadoo dhacaysa fii caynin il dhexdeeda iyadoo ku dhacaysa xami'atin oo dhoobo madow ah jimisna waa la jimis ah ama dhoobo madow ah xami'atin oo dhoobo madow ah wawajada wuxuu helay cindahaa agteeda wuxuu ka helay cindahaa ishii u celi cindahaa ishii biyaha ahayd agteeda wuxuu ka helay qawman qowm buu ka helay halkaa dad baa deganaa oo ugu tegay qulnaa markaa waxaanu ku nidhi yaa dalqarnayni dulqarnaynow imaa an tucadiba inaad cadaabto oo dadka aada ciqaabto wa imaa an tattakhida ama inaad samaysato fiihim dhexdooda xusnan wanaag oo dhaqan wanaagsan aad kula dhaqanto labadaba khiyaarkaad leedahay imaa wa imaa waa khiyaargelin wey macnaa labadaba khiyaar baad leedahay qaala marka wuxuu yidhi dulqarnayn amaa man dalama ciddii dulmida oo shirki ku kacdo oo allah subxaana wa tacaala xuquuqdiisa dulmida fasawfa nucadibuhu waanu cadaabi doonaa uma kadibna yuraddu waa la celini ilaa rabbihi rabbigii xaggiisaa loo celi fayucadibuhu markaasuu allana cadaabi cadaaban cadaab buu cadaabayaa nukran oo la inkiray yacni aan la xamili karin wa amaa man ciddiisa aamana rumeeya oo wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan falahu waxaa u sugnaaday alxusnaa tii ugu wanaaga badnayd baa u sugnaatay jazaan abaalgud dartii jazaan abaalgud dartii ayuu u leeyay wasanaquulu waxaanu odhan doonaa lahu isaga min amrinaa arrinkanaga xaggiisa yusran fudayd arrinta aan wadana xaggeedana fudayd un baanu kaga dhihiyo wax culaysa la kulmi maayo uma kadibna atbaca wuxuu raacay dulqarnayn sababan sabab kale ayuu raacay xataa idaa balaqa markuu gaadhay matlica ashamsi qoraxdu meeshay ka soo baxdo makaanu bixitaankeedii meeshay ka soo baxda markuu gaadhay wajadahaa qoraxdii ayuu helay tatlucu iyadoo baxaysa calaa qowmin qowm dushooda iyadoo kusoo baxaysa qowmkaasoo lam najcal aanaa yeelin lahum iyaga min duunihaa qoraxda sokadeeda sitran astur aanaan u yeelin wax qoraxda ka sokeeyo astura aanaan u yeelin kadalika almru arrinku kadalika sidaa wey waa saa lasoo sheegay waqad axadnaa waan koobnay bimaa ladayhi waxa agtiisa ah waxa dulqarnayn agtiisa ah waanu koobnay khubran ogaansho xaggiis baan ku koobnay ogaansho
iyo ka warhayn baan ku koobnayo nagama qarsoono rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu sameeyay markii la khiyaar galiyay dulqarnayn oo la yiri dadka aad u tagtay ama cadaab ama dhexdooda wanaag samayso ayuu markaa wuxuu yiri cidii dulmi ku kacda shirki iyo gaalnimo la timaada alla iyo diintiisa diida waa dulmi bal waa a'zamu dhulmi inna ash-shirka la dhulmun 'azim naftiisa dhulmida khalaa'iqda iyo adoomada ilaahay dhulmiya ruuxi dhulmi la yimaada waxaanu cadaabi doonaa buu markaanu cadaabna kadibna waxa loo celin doonaa xagga rabbigi markaasuu cadaabi doonaa alla cadaabkii aakhiro cadaab la inkiro oo la xamili karin oo yani bini aadamku uusan yeeli karin oo ku adag ayaa rabbina cadaabi doonaa buu subhanahu wa ta'ala yani adduunkana sirci baanu marin aakhirana cadaabki ilaahay buu tagi doonaa buu leeyahay waa kee war ruuxi dhulmiga ku gardaran ku wata ama ruuxi iimaan la yimaada allah rumeeya xaq rumeeya amal saalixana la yimaado dhaqan ahaan u qaata diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala kaasi wuxuu leeyahay al-husna ta ugu wanaaga badan buu leeyahay tii ugu wanaaga badnayd ayuu leeyahay abaalgud ahaan buu leeyahay abaalmarin darteed iyo abaalgud darteed maadaama iimaan iyo amal saalix uu la yimid hada abaalgudkiisu muxuu yahay wa hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan al-husna tii ugu wanaaga badnayd buu isagu leeyahay macna tayib arrintanada xaqiisana wax fudud mooyo wax kale ka dhimayn wax hadal fudud dhaqan fudud mucaamalo fudud oo sahlan waxaan ahayn kula dhaqmaynayo macna iimaan iyo amal saalix oo maadaama uu la yimid saas rabbi subhanahu uu leeyahay yani waxa weeye dul qarnayn uu leeyahay arrintaasi marka waxa weeye awoodiisi ilaahi uu siiyay subhanahu wa ta'ala iyo madaxnimadii ballaadnayd iyo asbaabtii ilaahi uu saalay subhanahu wa ta'ala wuxuu u adeegsanayaa dadka zaalimiinta ana inuu ku qahro ku burburiyo dadka iimaanka iyo amal saalix la yimid ee mu'miniinta ana inuu ku garabsiiyo oo ku soo dhaweeyo saaway sida saxda nabiyullaahi sulaymaan alayhi salaam iyo madaxdii iyo rusushii iyo madaxdii saalixiinta ay adduunka soo maray madaxnimadoodii awoodda kursiga waxay u adeegsan jireen dadka gartale ee xaqa wada tawxiidka wada ilaahay yaqaanana in loo heliyo dadka zaalimiinta ee rabbi xarigiisa gooyeen in lala dagaalamo sida marka madaxnimada uu isticmaalo kursiga qaabka uu isticmaalo awoodiina halka u jeediya sidaas layna baray yaa loo maahmaahaya dadka madaxda ama madaxnimada guri kaga jirto dadkaas darsi la siinay ilaa shariicadu qaybaha bulshadu ay ka kooban tahay qayb walba darsigeeda la siiyay madaxdii baa duruus la siinay ama ina diintii kula dagaalantaan awoodiina dhaqaalaha iyo awoodii military iyo awoodii waxa la haydeen oo dhan inaad u jihaysaan inaad ilaahay kula dagaalantaan oo tawxiidka kula dagaalantaan oo ninka ceebaysan uu noqdo ninkii saalix ah oo gabadha caayane tukaha cambaarta la ay noqoto gabadhii cafiifada ahid ee dhowrsoonayd oo dadka kuwii ugu liitay ay karaamo iyo sharaf agtiina ka yeeshaan oo fasaadkii soo dhaweysaan khayrkii iyo akhlaaqdii iyo tawxiidkiina aad kula dagaalantaan taasi waa dhaqan gaalo wey dad iimaan leh oo ilaahay ugu nimceeyay kursigan iyo madaxnimada dhaqankoodii maaha madaxdu masaas yeeshaa maanta maya ninba ninku ka xun yahay bay soo dhaweystaan ninba ninku ka fiican yahayna waa necab yahay ninkii sacabka u garaaca oo durbaanka u tuma oo idinkaa quman yidhaahda isagoo hungurigiisii waxoogaagisa raadinaya kaas baa agtooda wuxuu ka yahay ninka la soo dhaweeyey amaa ninkii ku yidhahda war waad khaldantay sidani sax maaha allah baad gara marteen culimadii saalixiintii ducaadii waa dadka u xidhxidhan waa dadka tukada cambaarta leh waa dadka ay sida silica ay u leynahayaan oo u dilayaan way macna limaada ay u leynayaan waxay u leynayaan iyagaa ilaahay xarigiisa gooyay subxana wa tacala kuwan bayna rabin marka fasaadka iyo xumaantay doonayaan madaxnimada qaabka iyo awoodda looma isticmaale qaabkan u isticmaalo madaxii iyo dadkii ilaahay awoodda u dhiibayo saasaa layna baraya macna qaala wuxuu yidhi amaa man dalama kadib rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray dulqarnayn amaa man dalama ciddii dulmi samaysa fasawfa nucadibuhu waanu cadaabi doonaa uma kadibna yuraddu waa la celinaya ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa loo celinaya fayucadibuhu markaasuu cadaabayaa allana cadaaban cadaab buu cadaabayaa nukran oon la inkiroon la xamili karin wa amaa man ciddiisa aamana rumaysa
أو عمل سميس صالحا عمل ونكسا فله وحا أسقنادي جزاء أبالقدرتي أما أبالقدرتي وحا أسقنادي الحسنى تي أغوانا قبضنيت أسقنادي وسنقول ونعرننا له إساق من أمرنا أرنك نجا حجي سوحا كبهينا يسرا فضيت أما من أمرنا أرنك نجا حاله كميديا يسرا فضيت بانو رحين هذا فضيت يلقى فضيت بأقول رقمنا لقن كاس لقن كدتك صالحين تالو قول رقمنا ونكسا سلاسوي معنا ثم أتبع سببا سبب كانوا الرعي وحقيقه هذا الوجه حق قرح كسوبح وآد هلكا مركو تغميشي قرحدو كسوبح يسي أيا وحو هلكا أقول تغيطات يجي قرح دي بأن لو دحينين با أيجي قرح ذا وح أستر أودحي مجر حال لقوه ذا معناه وحوي وح قباط عمله جيد أي كو قبضان بور أي هوستي ذا قلال دسماء أي قلال وادد يجي قرح دي سي أصوبح دي أن لو دحينين لم نجعل له من دونها سترا أستر ملك ميل بنان ددقون وقيد يبوري كوكا بدان وقرحة كوكا بدان من لحي ربي وحيري سبحانه وتعالى أرهم كواسال سوشي انت ذو القرنين أما دول مريا أما وحسمين أيو وركي سمم موغين أرمها أو سمين يبابين كودي يصل كودا أنه أبنه الله سبحانه وربي سبحانه وتعالى إذا إلا المامولي الله كما قرصونا ما أها أود إلهي كما رحبنان ورنينك انت كرسيك يا أود اللورد يبي السيريو تإلهي واد كما رحبنان oo lagulama socdo laguma ogow waad qarwaysaa waad riyoonaysaa allah ma waxaan ku dhiibay isagaana kugu maamulay isagaana kula socda maalintii doonana uu ka qaadi maalintii doonana isaga alla ku deyn subhanahu wa ta'ala taas la doonay waa la soconaa rabbiga subhanahu wa ta'ala waxa uu sameeyo dhan waa ogna thumma kadibna atba'a wuxuu raacay sababan sabab kale raacay hatta idha balaga markuu gaaray matli'a ash-shamsi qorraxda makaan soo bixitaankeeda meeshay ka soo baxda markuu gaaray wasaan horey u sheegnay wajadaha qorraxdii ayuu helay tatlucu iyadoo soo baxaysa ala qawm dad korkooda iyagoo ku soo baxaysa qawmkaasoo lam naj'al ana yeelin lahum iyaga min duuniha qorraxda sokadeeda sitran wax astur ana yeelin gabaad iyo wax astura oo geedo ama buura looma samaynin kadalika al-amru arinku kadalika sidaw waqad ahatna haqiiqan wan koobnay بما لديه وحا اكتساء ذو القرنين وحا اكتساء او سمينيو اما كوكعيو وان كوبني خبرا اوغانشا حقي اوغانشا دنكيسا iyo dhanka ogaanshaha iyo la socoshada waanu koobnay rabbiga subhanahu wa ta'ala oo nagama qarsoona thumma kadibna atba'a wuxuu raacay dhul qarnayn sabab raacay markii hore waxay ahayd qorrax dhac markan dambana waa qorrax ka soo bax waa labadii jiho kala aaday حتى ثم كذبنا أتبعه وحراعي سببا صوب كلا أي راعي حتى إذا بلغ مركو قاري بين السدين لبدي بورد لحظة مركو قاري وجد وحو هلا من دونهما سكضوضا قوم بكهلا قوم كاسوا لا يكادون أنسجين يفقهون إني فهمان قولا هذا إني فهمان قالوا وحيدا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ياجوج وماجوج لبدا قيس مفسدون وفسادية وفي الأرض لكي فسادية فهل نجعل ميلنا لك عليك مكويا لا خرجا خرش وحام بحنه على أن تجعل إنادي يشو شردك بيننا وبينهم إيجي أنك نحضر نظر إنادي يشو سدا أوت نكال أوده قالوا وحول مرك ما مكني وحقوا إمكني فيه دحديث ربي وحو إمكانيو قعنت إيقلي أيا خير كخير بدن وحا آدي بلن قاديسا وحا الدحين الذي وامدحينينا وحا إلهي قعنت إيقلي إمكانيو إيقلي بيبا كخير بدن فأعينوني إيكالمية بقوة أودي إيكالمية حق شغالا أجعل أنيالي بينكم لحدينا إيا وبينهم إيقا لحدو در ردما سدي أنيالي سدي أدق أن لحدينا لغة رج إيقو كالميو آتوني شقدي باب اللابة رجي شغين لها بيقو كينان شقدي باب اللابة آتوني إسي بولي زبر الحديد بيرتا قبل لديه قوقع بيرتا إي كينب حتى إذا ساوى مركو سمي بين الصدفين لبدي بك لبدا بورود لبدا دناعي إسسوط أوري أيها الصدفين كالإله بقى أما دنع بورتا الصدف كالله حتى إذا ساوى مركو سمي بين الصدفين لبدي بك أما لبدي دنع لبدا بورود مركو سمي أيها قال وحري أنفخوا أفوف مرك
xataa idaa jacalahu markuu ka yeelay shaygii la afuufahay markuu ka yeelay naaran dab markuu ka yeelay ayaa qaala wuxuu ihi aatuunii isiya qitran naxaas la dhalaaliyey isiya qitran damur ama naxaas la dhalaaliyey ii keena ufriq aan shube ama shube calayhi dushiisa kaas la afuufay korkiisa aan ku shube qitran naxaasta la dhalaaliyey aan ku shube fama staacuu marka maynan awoodin an yadharuu in ay koraan oy fuulaan wama stataacuu maynan karin naqban duleelin lahu sadigii ay duleeliyaan inay duleeliyaanna waa kari waayeen inay fuulaan haw suroobi wey dulqarnayn dhinac kale u jeedsaday xaggaa iyo bari baa laynoogu sheegay dhankaa bari baa laga hadlayaa socdaalkiisii waxyaabuhu kula kulmay meeshaa markuu tegey waxa uu gaadhay 2 buurood dhul u dhexeeyay labada buurood dhexdooda wuxuu ugu tegay dad aan waxba fahmaynin laa yakaaduuna yafqahuuna qawla hadal inay fahmeen baa aan sigeyn inay fahmaan iska xataa kuma dhow xataa inay fahmaan talo maxay ahaayeen allahu aclam qur-aanku wuxuu yidhi waxba fahmaynin niman aan wax fahmaynin ma luqad kale ku hadlaayeen ma iyaga dhanba damiinay ahaayeenoo fahamkaaba ku xumaa allahu aclam dad aan waxba fahmaynin buu meesha ugu tegay markaasaa waxay yidhahdeen dulqarnaynow codsi bay usoo gudubsteen waxay yidhahdeen niman yaajuuji wamaajuuj la yidhahdaa jira oonu meeshan daris ka nahay nimankaasu dhulkay fasaadiyaan waxbay dilaan waxbay dhacaan waxbay kharibaan waa nin noocaas ee intaanu kharash bixinno oo aanu ujuuro bixinno annaga iyo iyaga ma noo dhaxaysiinaysaa teed sadi macnaha yani awd waxna kala awda oo iyagiiyo annagana kala celiya ma noo samaynaysa sadiga waxa la yidhahdaa shay kasta oo shay kaa celiya kaa teeda la yidhahda macnaha markaasaa wuxuu yidhi arrintii mabda'iyan waa ka ogolaaday laakiin wuxuu ku diiday ujuuraanu ku siinaynaa wuxuu yidhi waxa ilaahay gacantayda geliyoo awood iyo xoolo ah ayaa ka khayr badan waxaad iisoo bandhigaysaan iska haysta xoolihiina ujuuradiina iska haysta ee keliya waxaad iigu kaalmaysaan uun shaqaale waxaad iigu kaalmaysaan xoog iyo awood rag hawshan qabta ama kharashkii xoolaha iska haysta anaa qabanayo idinkiiyo iyaga waxaan idin dhaxaysiinayaa sadi ma ahe radmi baan idin dhaxaysiinaya radmiga iyo sadigu waa kala xeel dheeryihiino radmiga waxaa la yidhahdaa sadiga marka la labanlaabo oo aad loo adkeeyaa radmi la yidhahda kaasaan dhexdiina yeelayaa laakiin raggii shaqayn lahaa keena raggii taqriiban inay soo diyaariyaan baa meesha ka muuqata waxaa la samaynayaa marka sadigii baa la samaynaya ama radmigii qaabkay baa loo sameeyey allah subxaana wa tacala suu tilmaamay fiiri wuxuu yidhi ii keena biraha gabalada birta gabalada yani bir la yaryareeyey oo burburo jajab ah ii keena birtiibuu wuxuu ku guray jajabkii birta ayuu wuxuu ku guray 2 buurood ee dhexdooda ay soo marayeen intii 2 buurood u dhaxaysay wuxuu ku ururiyey jajabkii birta wuu ku guray wuu isdul saar ilaa 2 buurood labadoodii wejiye isa soo dhowrahayay ay sinaadeen labadaa markuu simay waxa meesha ku urursanee ishayana ay tahay biro yaryar oo la yaryareeyey ayuu marka wuxuu yidhi marka afuufa maxaa laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa dab baa lagu shiday dabkii waa inuu huro oo birta kululeeyo maxaa loo baahaya markaa waa in la afuufo buufimadii la isticmaalo soo ma buufimadii dabka lagu shidahay waa isticmaalo unfuqu afuufo birtu si ay u kululaato markii la afuufay oo birtii kululaatay oo dab ay noqotay holcayo caddaatay ayuu marka wuxuu yidhi marka waxaad ii keentaan naxaas la dhalaaliyey oo shubmaysa ii keena oo daamurka oo kale siisa u shubmaysa bir naxaas oo shubmaysa buu ku shubay markaasaa waxay noqotay sibsib buurtii meesha ku taalay le-eg xagga dherarka xagga adaygana kaba adag ma duleelin karaan mana fuuli karaan korkeeda intay soo maraanna kama soo dhici karaan intay qodaanna kama dusi karaan oo ma duleelin karaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala sadi cajo badan buu marka meeshaa ku sameeyey meeshaa marka waxaan u baannay inaan wax ka tilmaano marka koobaad nimanka la yidhahda yaajuuj iyo wamaajuuj maxay ahaayeen qisadooda yaajuuj iyo wamaajuuj macluumaadka qur-aanku uu ka bixiyey suuradan iyo suuraddan oo soo socotaa wax yar lagaga tilmaami doonaa laakiin axaadiista nabigeenna faahfaahin dheeraa laga bixisay
horta waa ilmo aadam oo carruurta nebi aadan dhalay bay ka mid yihiin sida xadiis saxiixa nabigeena kaga sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh. marka labaad adduunka meel ka miday ku nool yihiin oo dhulka meel ka miday ku nool yihiin. marka saddexaad nimankaasi waa niman fasaad badan oo dhib badan oo kulligood gaalo ah maxaa yeelay 999 ka geri doona naarta waa iyaga buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh. marka waa gaalo waana niman fasaad badan. nimankaasi aakhiru zamaankay soo bixi doonaan sida axaadiista nabigeena ku sugan sal alay wasalam. marka dajaal yimaado oo dhulka uu fasaadiyo nebi ciisa ka daba imaan doona. nebi ciisa soo degi doona markaasuu dili doonaa. markuu dilo nebi ciise mu'miniintii nebi maxamed raacsanayd ayuu hogaamin doonaa. muddo ayuu joogi doonaa. markaasaa alla wuxuu soo saari doonaa waxaa lagu odhan doonaa nebi ciise waxaan soo fakinayaa oon soo saarayaa addoommo kuway ah oo cidina aynan awooday kula dagaalanta lahayn ee dadka mu'miniintae ku raacsan ciisow buuraha dushooda saar baa la odhanaya. markaa kadib baa la soo daynaya. see loo soo daynaya? sadigii xaggay ka mareen? ilaan qur-aanku wuxuu yidhi mana duleelin karaan mana fooli karaan soo ma waxay noo soo socota derbigan goortuu ilahay doona in la burburin doono aayadda ma soo socota soo ma marka waa la burburiyey. xadiista nabigana waxaa ku sugan sal alay wasalam maalin kasta inay qodahayaan oo xordahayaan oy doonayaan inay ka soo baxaan. markii wax yar u dhiman tahay intay kusoo galaan say u qodayaan wax yar u dhimaya baa wuxuu leeyahay ninkii watay berri baynu intaa israacin doonaa ina soo celiy. markay kasoo tagaan meeshay kasoo bilaabeen saaka wuu ku noqonay meeshiiba haddana subaxdii kasoo bilaabayan saasay ku jirayaan ilaa xilligiisii la gaaro oy markaasi ay duleeliyaan israaciin markaa odhanay markaasay israacinay. hadday soo fakadaan waa akhiru zamaanka xilliga nebi ciise weeye. markay soo fakadaan wax alla waxay maraan bini aadan iyo biyo iyo noolo oo dhan waa jiidhaya waa cunaya. badaha xataa badday soo maraan badda dabaryo la yidhahda nabigu soo mari doonaan buri sal alay wasalam. safka hore qaybta hore ee socdaalka hore ee kooxda hore baa yaa baddiiba leefaysaba. kuwa dambe markay soo maraan waxay leeyiin war meeshan talo meel biyo ku jiri jirtay bay u eg tahay. meeshan malaha biyaha waa ku jiri jiray taasay odhanaya. xilligaa nebi ciisena weeyaan oo dajaal soo bixitaankiisa ka dambeeya ayay soo fakan doonaan nimankaas sida xadiiska nabigeena ku cad salawatu rabbi wasalaamu caleyh. nebi ciise marka la yidhahdo buuraha saar baa la soo daynaya. marka la soo daayo ayay marka wax alla wixii dhulka dushiisa ay mareen oo dhan bay dhammaynayaan. markay ka takhallusaan baa waxay samaynayaan leebab ay wataan bay cirka u ganayaan. markaasay waxay leeyihiin qaharna ahla alardi wa ghalabna ahla asamaa. dhulka wixii joogay oo dhan cagtaynu marin bal waxa kor inaga jira aynu tijaabino. markaasay leeb intay qaataan bay kor u ganganahayaan. bini aadam kor buu u ganhayaa. ilahay buu la dagaalamaya wuxuu leeyahay balkana aan ka takhallusno kuwii dhulka jooga waynu marnay. goor ay saa u kibirsan yihiin oo isla wen yihiin buu alla wuxuu ku soo dirayaa dixiri sangaalaha oo kale ah. markaasuu qoorta ka gelayaa. markaasuu kulligood wada daadinaya. aaway nimankii samada kusii socda dixiri baa laayay soomaalida bini aadam dixiri baa iyagona eber ka dhigay. markaasay dhulka ku daadanayaan. dhulkii oo dhan baa uraya. marka wuxuu nabigeenu yidhi sal alay wasalam allah wuxuu soo dirayaa marka shimbirahaasaa maydkoodii intay qaadaan baa meel un ilaahay ogsoon yahay bay ku daadinayaan. xilligaasaa nabiyullaahi ciisa iyo mu'miniintii la socday bay ka soo degayaan buuraha korkooda oo dhulka u soo degayaan. roobab baa da-ayo markaasay dhulkii ka nadiifinayaan urkoodii iyo qashinkoodii. markaas waa qiyaamadii waa soo dhowdahay. alla subxaana watacala adduunkiiba gabagabo markaa taagan yahay macna. marka xadiista nabigeena faahfaahin ka bixisa waa 2 qabiiloo nebi aadam ka soo jeeda qisadoodu noocaa wey. mu'arikhiinta iyo baaxisiinta qaarkood baa waxay yidhahdeen nimanka waxbaana baa waxay yidhahdeen sadigu waa sadigan jaynaha. yajuuj iyo maajuujna waa bashiiro. warkaasi war saxa maa. qaarkood waxay yidhaahdeen waa ruushka. warkaasina war saxa maa. qaarkood waxay yidhahdeen hadday jiraan ummad noocan oo dhulka dushiisa ku nool oo intaa la eg adduunku maanta meel walba dhulka ka mida taakataakaa loo istaagay oo satalaydyadiiba waxba soo gudbiyey maa la arko oo imisa sir baa ku duugan dhulkan aad arkaysaan aynu warkahayn. allah baa garanaya subxaana wa tacaala. reer bani israa'iil markii ay 40 beri tiiha iyo wareerka ku jireen ma cid bay is arkeen? hadday ciduun is arkaan Soomaaliland war waad wareersantihiin meeshan mara. wax
waxaan ilaahay baa maamulaya subxana watacala sirta dhulkan iyo waxa ku duuganna waxba kama yoga oo dajaalba waa nool yahay oo xeebahan mid ka mid uu joogaayo may keenaan ya nabigaa sheegay salawatu rabbi dajaal waa nool yahay isagoo nool buu ku katiinadaysan yahay xeebaha badaha mid ka mid saxaabada qaar ka mid ahba tegay oo soo arkay isagoo katiinadaysan aawey caalamkan meel walba soo taabto saxarkii dhulka yaalayba soo gudbiyey may dajaal soo gudbiyaan su-aal isweydiin lama waxaasoo dhan marka ka bax waxaasoo dhan ka baxe nimankan arrinkoodu waa arrin laaban dajaal markuu yimaado kadib bay soo bixi doonaan xilliga nebi ciisay ku aadan tahay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam faahfaahintaasa axaadiista nabigeenu bixisay salawatu rabbi wasalamu caleyh annaguna wixii qur-aanka ku sugan nebi maxamedna ka soo arooray baan rumaysannahay salawatu rabbi wasalamu caleyh saas wey macana ayib uma kadib atbaca wuxuu raacay sababan sabab buu raacay dulqarnayn xataa idaa balaqa markuu gaadhay bayna asadayni labadii buurood dhexdooda markuu gaadhay ayuu wajada helay min duunihimaa labada buurood ka sokodooda wuxuu ka helay qawman qowm buu ka helay qowmkaasoo laa yakaaduuna aan sigaynin yafqahuuna inay kasaan qawlan hadal inay kasaan waxba ma fahmayaan macnaha qaaluu waxay dhahdeen ya dalqarnayni dulqarnaynow ina ya'juuja wama'juuja soomaalidu yuug iyo wamaayuug bay dhahaan yuug iyo wamaayuug yani waa kelimadii waxoogaa un cujmo la geliyo wax alla wixii ay fahmi waayaan oo khayr daran oo wax dardarabna yuug iyo wamaayuug bay dhahaan soomaalidu marka waa niman badan oo jabbaariin oo xoog badan oo saas ina ya'juuja wama'juuja labadaa qabiil mufsiduuna kuwa fasaadinaya fil ardi dhulkay fasaadiyaan ee fahal najcalu ma yeella laka adiga kharjan waxaan bixino kharash ujuuro aan bixinna ma ku yeelna calaa an tajcala inaad yeesho shardigeed baynanaa dhexdanada iyo wa baynahum dhexdooda saddan awt wax la kala awdo inaad yeesho sababta arrintaa shardigeeda ma kuu siinaayo kharaj ma kuu yeella qaala wuxuu yihi maa makannii maa shayga makannii uu imakaniyey fiihi dhexdiisa rabbigay uu imakaniyo gacanta ii geliyey oo awoodda iyo xoolaha ah ayaa khayrun ka khayr badan yani min kharjikum kharashkiina taan haysto ilaahay ii dhibay baa ka fiican ka khayr badan ee fa aciinuunii i kaalmeeya biquwatin awood igu kaalmeeya awooddani marka maadaama xoolihii uu diiday waa awood gacantii shaqayn lahayd raggii igu kaalmeeyo ajcal yeele baynakum dhexdiina iyo wa baynahum isku soo jeeday labada dhinac ee isku soo jeeda laba buurood markay midna halkaa tahay midna halkaa tahay laba dhinac baa isku soo jeeda labadaa dhinac ee isku soo jeeda mid balba sadaf baa la dhaha labadoodana sadafayn baa la dhaha labadii bog intii u dhaxaysay ayuu simay oo birtii yaryaray isu dul saarahayo isu dul tubahayay baa waxay la sinmeen labada buurood dhinacyadoodii bay la sinmeen macana xataa idaa saawaa markuu simay bayna asadafayni labadii bog markuu simay yani labadii bogee labada buurood markuu simay oo birtii yaryarayd uu ka buuxiyey ayuu qaala wuxuu ihi unfukuu afuufa marka si ay u kululaato oo daamurka ama naxaasta dhalaashanee lagu shubahayo ay u qabato birtu waa inay kulusha burtu iyadoo kulul haddaad bir kaleeta aad ku dhajiso soo kuma dhagayso haddayse qabuudahay miyay qabanaysa hadda fiiriya kuwan biraha ka shaqeeyay marka hore horta waa birtii inay dhalaaliyaan sooma waa inay kululaato oo sida dhuxulshoo kaleeta ay u caddaato markaa kadib bay saarayaan birtii kale inay ku dhajiyaan doonahayaan marka hadday isqabsadaan si kasta looma kala fujin karo sooma sancadaasaa meesha ka socoto sancadaasaa ka socoto unfuquu afuufa xataa idaa jacalahu markuu yeelay kii la afuufahayy almanfuuqa fiihi kii la afuufahayy markuu ka yeelay naaran dab markuu ka dhigay ayuu qaala yidhi aatuunii isiya qitran isiya qitrantu waa mutanaasacu caleyhi meesha dhihi jiray ufriq iyo waxaa ku doodaya aatunida aatuunii isiya qitran naxaas la dhalaaliyey isiya ufriq shube calayhi kaas dabkaa la kululeeyey ama kaa la afuufay korkiisa aan ku shube qitran naxaas la kululeeyey aan ku shubay saas maana naxaas la kulusheeyey aan ku shubay ayadii baan yani ii keena naxaas la dhalaaliyey naxaastaa la dhalaaliyey baan ku shubayaa kii aad afuufayseene dabka noqday korkiisaan ku shubaya maana saas markuu u sameeyey fama staacuu maynan awoodin oo way kari waayeen an yadharuuhu inay ka kor noqdaan inay ka kor noqdaan oo fuulaan oo korkiisa ka degaan way kari waayeen laxayla waa sidsi way meel la qabsado male aadna waa u dheri wama stataacuu maynan awoodin oo maynan karin lahu sadigii naqban duleelin
inay duleeliyaan oo ka dusaanna waa kari waaya. hadde buur ku hortaalla oodan fuuli karaynin duleelinna karin soo meeshaada joogun ma meeshaada joog waadan ku daalin saas macna. qaala hada raxmatu min rabbii faida jaa wacdu rabbii jacalahu dakaa'a wa kaana wacdu rabbii xaqaa. u fiirso waa xaakim caadila wey, nin yani waxa wey madax ah oo awood leh oo awooddiisa khayrka u adeegsanay wey. dhulkaasoo wuxuu yimid lays dulminayo oo ninkii xoogga badnaa uu cunayo kii tabarta darnaa. muxuu sameeyey marka? awooddiisii wuxuu u isticmaalay dadkan dulmiga iyo gardarrada isku haya inuu kala qabto. soo saas ma oo nimankii dulmiga waday la sharo meel lagu xidho si khalqigan kale ay uga nabadgalaan. u fiirso nimanka uu hawshaa u qabanayo waa nimanka lagu tilmaamay laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan, niman wax fahmayaba maaha. laakiin haddayna wax fahmaynayso khalqi ilahay oo cadaalad u baahan maaha iyo dulmiga in laga qabto. awoodda iyo dawladdu waa inay dulmiga la dagaalanto, cadaaladana ay sugto wey. saasaa loo baahanya. amaa nidaamkii iyo dawladdii hadday noqoto dulmiga inay sugto cadaaladiina la dagaalanto iyo sharaa'icda ilahay soo dejiyey, tilka xukuumatun kaafiratun, xukuumaddii islaama maaha midaas. ayib qaala marka wuxuu yidhi intaa markuu sameeyey dulqarnayn wuxuu yidhi haadaa kani raxmatu naxariisu oo min rabbii xagga rabbigay ka timi. tan aan sameeyey awoodtay ama ah waa naxariis rabbi. faidaa goortii jaa uu yimaado wacdu rabbii rabbiga yaboohiisu markuu yimaado jacalahu wuxuu ka yeelayaa dakkan ayuu ka yeelayaa mid la burburiyey. wa kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbii rabbiga yaboohiisuna xaqan xaq buu ahaaday. wa taraknaa waan ka tagnay bacdahum qaarkood yowmaidin maalinkaa wacdigu imaanayo yamuuju isagoo uu dhex gelayo bacdigii fii bacdin qaarka kale uu dhex gelayo, isagoo dhex gelaya o dhex guuraya. wanufiqa waa la afuufay fi suuri, suurkii baa la afuufay. fajamacnaahum waanu kulminay jamcan kulmin. wacaradnaa waan bandhignay jahannamo ayaan bandhignay yowmaidin maalinkaa la soo ururiyey lilkaafiriina cala alkaafiriina gaaladaan u bandhignay cardan bandhigi buu alla yidhi subxana wa tacaala. aladiina gaaladaaso kaanat ay ahayd acyunuhum indhahoodu fii khitaa'in dabool dhexdii can dikrii aniga qur-aankayga iyo xuskayga xaggiisa ay dabool kaga sugnayd. oo wa kaanuu ahaa laa yastatiicuuna kuwa aan awoodin samcan maqal xaqa la maqlo. haadaa raxmatu min rabbii. ufiirso awoodan iyo sadigan aan sameeyey iyo waxan aan qabtay cilmi kay-a ma ah, awood tay-ana ma ah, waa naxariis ilaahi subxana wa tacala. allah baa khalqigiisa u naxariisanaya. fiirso ruuxu hadduu kibiraana yahay isagaa wax kasta iska dhiga aniga anaaniyuusan ka dhammaanin. aniga anaa qabtay anaa kana aniga. laakiin hadduu yahay ruux mutawaadic oo ilaahay rumaysan wax walba allah buu tiiriya subxana wa tacala. raxmatun min rabbii waa naxariis ilahi. ficlan waana saa. maxaa tahay adugu markaad aniga ku haysa maxaad waxaa tahay ma jirto. waa naxariis rabbi buu yidhi sadigani markii ilaahay yaboohiisii uu yimaada xilligii uu yaboohay ee uu ku talagalayna sadigan aad arkaysaan wuxuu noqonayaa mid la burburiyo. waada xadiiska nabigaa fasirayo way ka dhex baxayaanoo way ka dhex dusayaan. waa la burburinaya waa xilli dambe oo xilliga qiyaamadu soo dhowdahay oo xilliga nebi ciise uu imaanayo calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo dajaal ka dambaysa xilligaas way xilligaa la burburinaya. wacdiga iyo yabooha rabbina waa mid xaq oo dhab ah in la burburin doono ayna imaan doonto xilli la burburiyaaye waa mid dhab ah oo aan dhayalhayn oon bayna ku jirin. rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maalinkii qiyaamada marka la soo galay ama wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin waxaa laga wadaa afuufistii hore nafkhigii hore ka hor adduunka markuu gabagabo ku dhow yahay ayaa laga hadlaya. qaarkood baan qaarka kale ka tagnaa iyagoo isdhex guuraya oo isku dhex jira. ma khalaa'iqdii oo dhan baa mise waa yaajuuji wamaajuuj? waxaa fiican in la yidhahda khalaa'iqdii o dhan laga dhigo. khalaa'iqdii oo dhan baa isdhex miriglaynaya oo isku dhex jira. wanufiqa fi suuridaasi marka waxay noqonaysaa nafkhigii dambe. ila nafkiga laba goor mid waa midka hore adduunka lagu gebagabaynayo lagu khatimayo, midna waa midka dambe lagu soo noolaanayo. wanufiqa fi suuri fajamacnaahum jamcan waa kii lagu soo baxayo qubuurta lagaga soo baxay oo noloshii dambe lagu galahayo wey macnaha saas weeyaan. aayaadkaasi marka waxay tilmaamayaan xilliga yaajuuj iyo wamaajuuj ay adduunka ku soo baxayaan inay tahay xilliga ay qiyaamadu soo dhowdahay. soo saas ma
ilan markiiba waxaa la daba dhigay wataraknaa bacdahum yawmaidin yabuuju fii bacdin wanufiqa fi suuri fajamacnahum jamcan qiyaamadii baa la daba dhigay markay soo dhowdahay inay taaba laga fahmaya marka waana sida axaadiista nabigu caddeeyeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii markay yidhaahda haddayba soo baxeen ama waa horay soo baxeen ama yidhaahda tataarkii caalamulislaami maray oo baqdaad qabsaday oo muslimiinta baabi'iyey bay ahaayeen oo kuwaa ku fasiraayay sawaabka waa ka fogyahay sawaab waxa weeyaan inay tahay akhiru zamaanka markii macnaha wax xilliga adduunka la gabagabaynay rabbi wuxuu yidhi subxaana watacaala dadka gaalada ah maalinta qiyaamada waan bandhigaynaa oo waxaa loo bandhigayaa naarta jahannama inta la soo kaxeeyaa jahannama la dul keenaya jahannamadii marna ayagaa la kaxaynaya oo la dulgeynaya jahannama marna jahanadiibaa la soo qaadayo iyagaa la horkeenaya waa loo soo muujinaya macnaha kuwee weeye gaaladaasi maxay samayn jireen adduunyada markay joogeen indhahoodu dabool bay ku jireen oo xaqa iyo qur-aanka ilaahay araggiisa ayay dabool kaga jireen macnaha waxa weye indhahoodu inay xaqa ku fiiriyaan maynan samaynin inay wax maqlaanna mayna kari karin laguma karayo warkaalaya diinta dhegaysto xaqa dhegaysta laguma kari jiro maxay u kari laayihiin waxay u kari laayihiin shaydaan baa duubsaday iyo naftooda intay adduunka joogeen xaq inay maqlaan oo qur-aanka dhagaystaan waa lagu kari waaye indhahooda inay ku fiiriyaan oo ku akhriyaanna way kari waayeen oo indhahooda daboolaaba saarnaaba kuwaa wey kuwa ilaahay naarta jahannama u bandhigayo subxana wa tacala maalinta qiyaamada qaala wuxuu yidhi dulqarnayn haada kani raxmatu naxariis wey oo min rabbii xagga rabbiga ka timid faidaa goortii jaa uu yimaado wacdu rabbii rabbiga yaboohiis jacalahu wuxuu ka yeelayaa alle sadigii wuxuu ka yeelay dakan mid burburay buu ka yeelay oo la burburiyey ay madkuuka wey wa kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbii rabbiga yaboohiisu xaqan buu ahaaday mid dhab ah wax alla yabohay yaboohiisu mid imaanayo xaqiiqo way aan shaka ku jirin wa taraknaa waan ka tagnay bacdahum qaarkood khalaa'iqdii iska dhe damiirka u celi wa taraknaa waan ka tagnay bacdahum khalaa'iqdii qaarkood yawmaidin maalinka waa maalinka wacdiga ilaahay imaanaye yamuuji iyagoo uu dhex guurahayo shaygu markuu isdhex galo oo isdhex guuraa la yidhahda yamuuji isaga oo uu dhex guurayo fii bacdin qaarka kale dhexdiisa iyagoo isdhex guuraayo sida mawjadii oo kaleeto ayaanu maalinkaa ka tagnay bu rabbi yihi subxana wa tacala wanufiqa waanu afuufnay wanufiqa waa la afuufay fi suuri suurkiibaa la afuufay buunkiibaa la afuufay waa khalqi ilahay khalqigiisa ka midoo malag baa u xil saaran adduunka markuu gabagaboobahayo ayuu afuufaya afuufistaasaa lagu dhimanaya saas maana marka dambe lasoo noolaynayana mar labaad buu afuufaya markaasaa lasoo noolanaya malag israafiil la yidhahda u xil saaran oo nabigu yuri sal lla alay wasalam yani kayfa ancam seebaan u nicmaysan buu nabi uri sal lla alay wasalam isagoo malagii buunka loo xil saarayay uu foorarsaday oo uu afka gashaday buunkii afuufistii uun keliya u laabantay iyadoo qarkaba ay saarantahay seen u barwaaqaysan oo u nicaysan adduunyadan isugu hadlay bu nabi salawatu rabbi waslamu caleyh saas weeyaan wanufiqa fi suuri buunkii baa la afuufay waa la afuufi doonaa baa laga wadaa fajamacnaahum markaasaanu kulminay khalaa'iqdii jamcan kulmino waa laysu keenay waxba lagama imaanin wacaradnaa waan bandhignay jahannama ayaan bandhignay yawmaidin maalinka lilkaafiriina cala alkaafiriina gaalada korkoodaan u bandhignay cardan bandhigid waa loo soo muujinaya waa la horkeenay alladiina gaaladaasoo kaanad ay ahayd acyunuhum indhahoodu adduunka markay joogeen fii khitaa'in daboollo dhexdood can dikrii qur-aankayga xaggiisa daboolla ay kaga sugnayd macnaha can dikrii ayay dabooladu kaga sugnaayeenoo indhahooda daboollay ku jireen dikrigayga inay arkaan bay ka daboolaayeen wa kaanuu ahaa laa yastatiicuuna kuwa aan karin samcan maqal ilaahay baa dhagaha yani culays ka saaray oo markii iyagu ay leexdeen oo xaqii diideen baa waxaa loogu abaalguday in dhagahooda la xidho indhahana daboolla laga saaro afaxasiba aladiina kafaruu afaxasiba ma waxay malaynayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey an yattakhiduu inay samaystaan cibaadii addoommadayda min duunii aniga sokow awliyaaa inay ka samaystaan ma waxay u malaynayaan naafican inuu yahay mid anfacaya itikaadkaasi inuu anfaci miyay moodaya innaa anagu actadnaa waan diyaarinay jahannamo ayaan diyaarinay lilkaafiriina gaaladaan u diyaarinay nuzulan xaal ay sooryo tahay qul waxaad dada nebigu hal nunabi'ukum ma idiin warannaa bilakhsariina kuwa ugu khasaaro badan acmaalan xagga acmaasha aladiina kuwa weeye dalla uu lumay sacyuhum camalkoodii uu buray fi lxayaati adduunka dhexdiisa ay sameeyeen addunyaa ee lidat fi lxayaati dunya nolosha addunya dhexdeeda camalkay sameeyeen uu buray walxaal hum iyagu yaxsabuuna ay malaynayaan
annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan xagga sancada sancafalka xagga camalfalka inay wanaajinayaan iyagoo oy la tahay ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaya kafaruu kufriyey biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa kuwa ku kufriyey wey wa liqaa'ihi iyo alla la kulankiisay ku kufriyeen faxabitat waxaa burtay acmaaluhum camalyaalkoodii baa buray falaa nuqiimu oogi maynon istaajin mayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada u istaajin mayno wasnan wax miisaan ah wasnan wax wasan ama qiimo ah wax qiimo oon u yeelayna ma jirto dalika kaasi jazaauhum abaalkoodii wey jahannamo wey bimaa kafaruu bikufrihim kufrigooda sababtii waittakhaduu iyo samaysigooda sababtii aayaatii aayadahaygii ay ka samaysteen iyo wa rusulii rusushayda husuwan jeesjeeska ay ka samaysteen rabbi subxaana wa tacaala wuxuu marka aayadahan kaga hadlayaa dadka alla ka sokow khalaa'iq kale awliye ka dhigtay awliyada waxaa laga wadaa meeshan kuwa ay caabudaan oo alle xuquuqdiisiiyo wuxuu gooni u lahaa ay siiyaan ama sanam dheh ama dhagax dheh ama geed dheh ama malag dheh ama rasuul dheh yacni waxa weeye addoommo ilaahay addoommadiisa ka mida bay ka dhigteen kuwa ay caabudaan kuwaasima waxay moodayaan ka dhigashada ay addoommadayda ka dhigteen kuwa la caabudo inay anfacaysa miyay moodayaan ma wax taray moodayaan dhagaxaad caabuday wadaad qabri ku jira iyo khalqi aad wax u doonatay ood caabuday ood u yeedhatay inay wax ku anfici miyaad moodaysa maya marafacaad male bal dhibkooda ayaa ka dhow dheeftooda cidda la caabuday taasi waa midda rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala adduunyada horta manaafacaad laga heli maayo ilaahay cid aan ahaynoo loo yeedhay ama la baryey ama la tala saartay ama wax loo doontay waxaan dhib ahayn laga heli maayo oo dheef horta male waa adduunyada ama aakharo waxaanu u diyaarinay bu rabbi subxana wa tacala dadka noocaasa jahannamo ayaanu u diyaarinay martisoor xaalo ay tahay iyada oo soor yani waxa weye soorye ah saas macnaa sooriyo nuzulka waxaa la yidhahdaa waa shayga loo diyaariyo cidda kuu timid ee weliba aad jeceshay ayaa nuzulka la dhaha halkanse waxaa laga wadaa ayaga martiqaadkoodu mid fiican meehee martiqaad waxaa looga dhigayaa naarta jahannama walciyaadu billah taasaa lagu martiqaadaya iyaga rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala nabiga wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaa ma idiin waramaa dadka ugu khasaaraha badan xagga camalka inta ilaahay abuurtay kuwa ugu khasaaro badan xagga camalka ma idiin sheegaa jawaabtu waa kuwan waa kuwa camalkoodii iyo dadaalkoodii adduunyada ay samaynayeeni uu buray samafal waxay samaynayeen dadaal waxay samaynayeen waxay xoolo bixinayeen cadaalad hadday samaynayeen waxay samafal iyo sacyi khayra sameeyeen adduunka waa lumay waa buray waa baaba'ay ayib waxayna la ahayd markaa ay camalka samaysanayeen annahum yuxsinuuna suncan xagga sancada inay wanaajinahayaan waxay leeyihiin culimmadu waxaa laga wadaa waa dadka aayaddu ay ka hadlayso waa dadka gaalada ah ee ictiqaadsan waxa ay samaynayaan inuu ilaahay u dhawaynayo subxaana wa tacaala waxay la tahay inay quman yihiin ilahay agtiga inay ajir ka helayaan ilahay ku raalligeliyay isleeyihin xaqiiqaduna waxay waa lunsan yihiin waxay ku talagashan yihiin marka adduunka waxay ka tagayaan iyagoo isleh waana waxba idinka horreey ilahay agtiisa wax idiin yaalla meeshii hadday tagaanba waxa mayaan waa bureen marka waa dadkaas macnaha waxbaan la tegaynaa leh macnaheedu waxa weye ruuxi shirki buu ku jira gaalnimuu ku jira shirki hadduu ku jiro wax camal uma dhigmayo ha isla qumanaado yuusan isla qumanaan hadduu ilaahay kayrkii caabudayo awliye caabudayo dad maqan caabudayo ilaahay wixii uu lahaa uu siinayo u gowracayo wax laga aqbalina ma jiro waxbana uma dhigmayaan salaadina ka ansixi mayso waxayse isaga la tahay inaad quman tahayoo awliyadii weyne silkigii yaan laga tegin war dariiqooyinka yaan laga tegin war ninkii aan dariiqo lahayn shaydaan baa dariiqo waxaasu akrinaya waa isla qumaya wuxuu leeyahay ilahay agtiisa wax kaaga horeeya xaqiiqana waxa weeyaan ha isla qumanaado isagu laakiin isla qumanadiisa wax kuma socdaan waan isla qumanayo ilahay baan wax kaga doonayaa keliya kuguma filla alla agtiisana saa wax kaga heli maysid haddaadan kufriga iyo shirkiga ka tegin ka tag waxa camalkaaga burinaya markaasaa ilahay wax ka aqbalaya subxana wa tacala walaw ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun baa layidhi subxana wa tacala rusushii baa laga soo hadlayay hadday shirki la imaan lahaayeen rusushu camalkoodu waa buri lahaayeen rasuulkeenana maxaa lagu yidhi
walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk waisha gawrac dibigu ha ku qusqaate haddii nebi maxamed laleeyahay haddaad shirki la imaan lahayd waa taqdiiri ma dhacayse haddii shirki kaa dhaco camalkaagoo dhan waa baaba'aya maxaad umalanaysaa ummadiisa marka kama suurooba nabi maxamed shirki ka dhici maayo laakiin ummadiisa qaar ka mid ay ka suurowdaa saas daraaddeed baan leenahay ku celcelinaya ma aha ra'yi anagu leeyahay waa allah hadalkiisa waa nebi maxamed sunnadiisa iyo hadyigiisa nin shirki samaynaya salaad laguma daba tukan karo nin shirki difaacaya salaadi kuma daba asaxayso isagii baa salaadiisa la aqbalaysa ugu daba tukanaysaan sababta ugu malanaysaa inuu muslim yahay islaami maaha in layna qaldo la yidhaahdo war maya dadku waa wada muslimiina dadka ka daayay war dadkan anagu maanaa gaalaysiinin qur-aankii baa gaalaysiinaya maanaan dhihin camalkooda la aqbali maayo qur-aankii baa yidhi lama aqbalay soo allah inaan ka dhagaysano maaha inaan caqiidat lirja ku dhacdo waa in yani sunnadii nebigii qur-aanku meeshuu maray in la maro wey mas'alada afraadda takfiirinteedu meesheeda wey amaa ruux shirki samaynaya waxaa lagu leeyahay ha ku daba tukan salaadiisuna ma asaxayso saas way macana ayib isla qumanaada isaguisa isla qumanaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala kuwa ilaahay aayadihiisa ku kufriyey la kulanka ilaahay iyo maalinta aakharana ku kufriyey camalkoodii waa buray maalinta qiyaamadana wax wasna u samayn mayno rabbi subxana wa tacaala wasnan maxaa laga wada falaa nuqiimu lahum yawma alqiyaamati wasna laba macnaa suuroobi karta qiimo u yeeli mayno wasniga ilan qiimaha la dhaha wax qiimaa loo yeeli maayo waa xaqiir aan qiimo lahayn waxaa kaloo suuroobi karaysa in laga wado falaa nuqiimu lahum yawma alqiyaamati wasnan wax miisaan ah oo loo soo dhigahayo maba jiro maxaa yeelay ruuxa la miisaamayo camalkiisa la miisaamayo waa midka xasanaadna la yimid sayi-aadna la yimid haddaadan waxbaba xasanaada la imaanin hadda maxaa kafada kale la saari ilan kafadii kale wax la saari u baantay sooma falaa nuqiimu lahum yawma alqiyaamati wasnan miisaanana waa la dhihi karaa wax miisaana u samayn mayno u istaajin mayno oo u ogi mayno saana waa tafsiir macnaha la qabo taasi waxa weeyaan waa abaalkooda waana jahannamo rabbi yidhi subxana wa tacaala kufrigooda daraaddeed iyo aayadahaygi iyo rusushaydiioo jees ka dhigteen daraaddeed baa sidaasi loogu abaalgudaya rabbi wuxu uhi subxana wa tacala afa xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey an yattakhiduu inay samaystaan cibaadii addoommadayda min duunii aniga ka sokow awliyaa inay ka samaystaan ma waxay u maleeyeen naafican inuu yahay mid anfacay laba ficiloo mid walba laba mafcuul qaataa meesha ku jira xasiba laba mafcuul bay qaadatay yani waxa weye ittakhadana waxay qaadatay laba mafcuul bay qaadatay an yattakhiduu labadeeda mafcuul waa cibaadii iyo awliyaa wey amaa xasiba labadeedii mafcuul midi waxa weeyaan waa jumlada an yattakhiduu ilan antii ficilku marka gasho master baa laga dhalaaliyay sooma mafcuulkii labaad aaway marka ee xasiba naaficanta dambe wey in qadarayno saas macna ayib afa xasiba aladiina kafaruu inaa anagu actadnaa waan diyaarinay buu rabbi subxana wa tacaala jahannamo ayaan diyaarinay lilkaafiriina gaalada ayaan u diyaarinay nuzulan sooriye xaalo ay tahay qul waxaad tidhahdaa nebiyo hal nunabi'ukum maydin warranaa bilakhsariina kuwa ugu khasaaro badan acmaalan xagga acmaasha aladiina kuwa weeye dalla uu lumay oo uu buray sacyuhum sacyigooda filxayaati nolosha dhexeeda ay sacyinayaan addunyaa ee liidata noloshan adduunyada dhexeeda sacyigoodii iyo dadaalkoodii camalkoodii ayaa buray walxaal hum iyagu yaxsabuuna ay malaynayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan sancada camalka xaggiisa inay wanaajinayaan iyagoy la tahay ayuu camalkoodii buray oo soo waxba ilahay agtiisa ka jirin subxana wa tacala ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weye kafaruu kufriyey biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa ku kufriyey wa liqaa'ihi iyo alla la kulankiisa aakhara lala kulmi doono ayay ku kufriyeen oo diideen faxabitat waxaa hoobatay acmaaluhum camalyaalkoodii ayaa hoobtay oo way bureen oo way baaba'een falaa nuqiimu oogi mayno istaajin mayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wasnan wax qiimo ah ama wasnan miisaan u istaajin mayno maxaa yeele kafadii kale wax la saarayba ma jiro waxooda dhan waa wada sayi-aad wey xadiis marfuuca nabigana laga warinay sal ly waslam nabigu wuxu uhi sal lay waslam bukhari muslim baa xadiis soo saaray inahu laya'ti arajulu alcadiimu asamiinu yowma alqiyaamati laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda buu nabi uri sal lay slam maalinta qiyaamada waxaa imaanaya nin weyn laf weyn oo cayilan oo hilib leh maalinta qiyaamada haddana ilaahay agtiisa kaneeca garabkeeda xataa miisaankiisa uusan dhannayn cabdullahi ibn mascuud miyahay miyo soo xadiiskii maahay ma minjihiisa dhuudhuuban baad ku qoslaysaan buu nabi uri sal lay wasalam
إلهي بان كبارتي إلهي أكتي سبورت أحد وكعلسي ابن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح روح إيمانك سي عقيدة دي كعلسي كفرك إيا قال لماذا يشرك يضو قالنا وافضدي صاصي معنا مركا يعني وحو ميزان الله سمين ماي إلهي أكتي سقيمة كماله أما ميزان لقو ميزان وماله الله سمين ماي معنا ذلك أرنكاتي جزاؤهم أبا القدف ودوي جهنموي كبدل بما كفروا بكفرهم قال لماذا سببتي واتخذوا واتخاذهم إيا سميسكوا ذا سببتين آياتي آياتها إيقا أي سميستين إيا والرسول رسول شيدا هزوا تشيسيسكا إيقا دكتين لولا أرمض بالله استا آياتها إيقا يكون كفريين رسول شيدين تشيسيس بيكا دكتين مربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزولها ذاتك واحد سوق ليه ذاتك بدعوين كوها يستصنوا دوها يست oo iyagoo waxyaabo bidco ilaahay ka fogeynaya ku dhagan haddana iska dhigaya in ilaahay u dhawaanayo subhanahu wa ta'ala macna waxay soo galayaan waa isla qumayah waana khaldan tayib innal ladina kuwa aamanu rumay oo wa'amilu samaya as-salihati a'masha wa wanasan kaanat waxay ahaatay lahum iyaga jannatul firdawsi firdawsada jannooyinkeeda ayaa u ahaatay nuzulan xaala ay sooriyad خالدين حالا ay ku warayaan fiha jannooyinka dhexdood la yabquna maradinayaan hiwalan wareegid maradinayaan anha jannooyinka xagood laga wareeg qul waxaada nabiyo law kana hadu ahaan laha al-bahru baduhu haday ahaan lahaayeen midadan khab wax lagu qor li kalimaati rabbigay kalimooyinkiisa haday khab u ahaan lahaayeen la nafida wuu dhamaan laha al-bahru badihi way dhamaan lahaayeen قبل أن تنفد انت يسندمان كلمات ربي كلموين كيسو انت يسندمان ولو جئنا آن لن نمان به حتى هذا لن نمان بمثله بداس وحلمدا مددا أو سيادة حلوية حتى هذا بدك يكون لنا ربي سبحانه وتعالى ثاني وحوي حديد قال لي هي إلهي أكتس عمل قضائين يسمح كهلين أو خسارة ين لغا شكي مؤمنين وين لغا شكي dadka iimaanka iyo amalka saalix alayhi iimaan bay la yimaadeen oo shirki bay ka yimaadeen ka tageen amal saalix ay la yimaadeen oo ilaahay dartii loola jeedo shirku uusan ku dheehnay nabi maxamedna lagu raacsan yahay oo sunnada waafaqsan ayay la yimaadeen kuwa firdawsa jannooyinkeeda ayay leeyihiin suuriya xalayta soo laba suuriyo walaalayaal kala fiican ma ninna suuriya waxa looga dhigay jahannama ninna suuriya waxa looga dhigay firdawsa ya soo aaduma kala durugsana saas labadaas mar kala marwo way ku waarayaan jannooyinka firdawsa lexoday ku waarayaan inay ka wareegaan ma dalbayaan oo ma codsanayaan xiwalka waxa la yiraahdaa meesha marka yaani argadiska leeyahay argadis yaani meesha marka abaar joogto barwaaqo kastood ku haysato marka dama naftaadu way nici hadii la yiraahdo magaalada Nairobi wax kastana waa kuwan meesha nu iska degano maalinta dambe adoo dalxiis raadinaysan bal bark meesha inaad ka wareegto bal waxa ka soo yara muqaanato aragadiisa raadinay limaada liana adduunyadu maaha meel daarul baqama takale adduunka markaad joogto oo meesha wax ku haysato waxaad isleedahay malaha meel ka fiican baa jirta Soomaa saadaradeed baad uga tagaysaa ama aad u dalbaysaa inaad ka wareegto laakiin jannatul firdaws meel laga noogo ama laga aragadisto maaha marka labaad weeye meel dhaanto de loo caragadisan oo qalbiga ku jirta ban jirin لأنها أعلى الجنان وأوسط الجنان بالنبي صلى الله عليه وسلم شنوينكم ugu sareyso waana mid ugu dhaxaysa rasuulka sallallahu alayhi wasallam xageed uga wareegi mar meel kale loo wareego miyaaj oo dalxiis loo tago ama meel lagu caragadiso ma jiro macna hiwalan meel ay u wareegan maradina rabbi subhanahu wa ta'ala kadib waxa la inoo sheegay rabbi subhanahu wa ta'ala qudradiisa iyo awoodiisa qaybo kamida la inoo muujiyo ilaahay kalimaadkiisa إليوينكيسي iyo hadalkiisu inuusan dhamaad lahayn waxa midaaliya tusaale leenugu siiyo waxa leeyahay badahan aad arkaysaan kulligood haday khad noqon lahayn ilaahay hadalkiisa lagu qorayo baduhu way dhamaan lahayn iyadoo hadalkii ilaahay uusan dhamaanin ya طيب حتى iskaba dhaafay badahan hadda jira kuwa lamid oo siyaada hadii lagu soo dari lahaa khadna laga dhigi lahaa ilaahay hadalkiisana lagu qori lahaa badaha oo dhan baa dhamaan lahaa hadalka ilaahayna ma dhamaan subhanahu wa ta'ala limaada lianna baduhu wa makhluuq wayna dhamaadaan hadalka ilaahayna makhluuq ma aha mar haduusan makhluuq ahayn dhamaad male sifa ilaahay miyaa dhamaad Allah sifaatkiisu dhamaad male subhanahu wa ta'ala
kalaamka iyo kalimaadkuna waa sifa rabbi wey. sifaadka rabbina jiritaankiisa ayay la jirayaan, maxaa yeelay allah huwa alaakhir walaysa bacdahu shay. sifaadkiisuna waa sidoo kaleeto oo weligood bay jiri doonaan, wax dhammaanaya marka maaha. suuratu luqmaan ayaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala. walow ana ma fi lardi min shajaratin aqlaam waalbaxru yamudduhu min bacdi 7 abxurin ma nafidat kalimaat ullah. geedaha oo dhan hadday qalin iswada noqon lahaayeen, badaha oo dhanna khad wada noqon lahaayeen, ilaahay kelimaadkiisana lagu qoro, badahana 7 badood oo kale lagu soo siyaadiyo, badaha oo dhan baa dhammaan lahaa iyo qalimaduba. kelimaadka ilahayna ma dhammaanin subxaanahu watacaala. adiga haddii lagu yidhaahdo ninka inoogu hadal badan haddii la yidhaahdo bal hadal waa lagaa qoriyey, si u hadlayo cabdirabaqsh xataa iska daldal, wax faa'iidala xataa sheegin, hadal un haddii la dhaho miyuu wadi karaa? inta in leeg buu hadal wadi karaa oo laga qori karaa? ya waa dhammaanaya, waa isoo taagaya, waan daalay buu leeyay sooma. hadalkii baama ka dhammaanayo, maxaa yeelay makhluuqu waa daciif. kooda ugu xoog badan ugu hadal badan haddii la yidhahdo war hadal waa lagaa qorayahay, wax yar dhowr qalin oo lasoo iibiyey baa hadalkiisa o dhan lagu qorayay. saas wey, khad yar baa dhammaynaya. allah qudradiisa iyo awoodiisa dhinac ka mida baa marka layna tusaya iyo sifaatka ilahi subxaana wa tacala. saas wey macana. ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan, kaanat waxay ahaatay lahum iyaga jannaatu lfirdowsi, firdowsa jannooyinkeeda ayaa u ahaaday. kaanat waxaa ahaatay lahum iyaga waxaa u ahaatay ay leeyihiin jannaatulfirdowsi, firdowsa jannooyinkeeday leeyihiin, nuzulan xaal ay sooryo tahay, khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexooda ay ku waarayaan, laa yabquuna ma raadinayaan oo dooni maayaan xiwalan wareegid canhaa jannooyinka xaggooda ay ka wareegaan, oy meel kale ka wareegaan oo carragadistaan. qul waxaad dhahdaa nebiyu, low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru baduhu hadday ahaan lahaayeen, midaadan khad hadday ahaan lahaayeen, likalimaati rabbii rabbigay kelimooyinkiisa iyo weedhihiisa hadday khad u noqon lahaayeen, yani ilahay hadalkiisaa laga wadaa, lanafida way dhammaan lahaayeen, albaxru badihii way dhammaan lahaayeen, qabla an tanfada intaysan dhammaanin kalimaatu rabbii rabbigay kelimooyinkiisu intaysan dhammaanin. yani maba dhammaanayse. walow ji'naa aan la nimaadnabe bimilihi baddaa mid la mida madadan xaalo u siyaadaya, baddaa mid kale oo la mida haddii lagu soo siyaadiye xataa baddaa dhammaan kelimaadka ilaahay oo baaqiya subxaana wa tacaala. qul waxaad dhahdaa nebiyow, inamaa ana anugu basharun bini aadan baan ahay oo mislukum idinkoo kale ah, yuuxaa waa la waxyooni ilaya aniga waxaa la ii waxyoon, annamaa ilaahukum kaad caabudaani ilaahun macbuud inuu yahay waaxidun oo mid ah. faman ciddii kaana ahaaday marka yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbii rabbigii la kulankiisa, falyacmalha camal falo camalan camal saalixan oo wanaagsan, walaa yushrik yuusan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan cidna yuusan la wadaajinin. nebi maxamedow waxaad ku tidhahdaa bashar baan ahay oo idinkoo kale ah. xaggee buu nagala mid yahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh? wuxuu nagala mid yahay xagga khalqiga iyo abuurka bini aadam wey. dhoobaa laga abuuray, sida aabihii aadam dhoobada uu laga abuuray buu nebi maxamed ka soo jeedaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh. laba bini aadam ah si caadiya u dhashay, nuurna lagama abuurin, shay kalena lagama abuurin, adduunka ka horna muusan jirin. khuraafaatu suufiya wey midaas. nuur baa laga abuuray, malaa'igtaa nuur laga abuuray, nebi maxamed nuur lagama abuuray. wixii ku tusayay wixii sheegto dhan waa wada baatil. qur-aankaa qeexaya aadam buu ka soo jeedaa, aadamna dhoobaa laga abuuray. bashar idinkoo kale aan ahay buu le nabigu sal lay slm. bal axaadiistiisa waxaa ku sugan bashar baan ahay, saad wax u halmaantaan baan u halaamaa. malag ma ihi, malag ma ah. bashar haddaan ahay waxaan idinla dheerahay, waa la ii waxyoodaa oo waxyibaa kor iiga yimaada. mabda'a la ii keene ilaahay xaggiisa la iiga keenana waxa weeye in annamaa ilaahukum ilaahun waaxid, hal la caabudaad leedihin, midka aada caabudaane cibaadada mudan waa mid. labana ma aha, saddexna ma aha, shanna ma aha, tirana ma aha. cibaadada yaa iska leh? hal mid baa cibaadada iska leh. waxa kale oo dhan cibaadada la caabudaya waa baatil, waa gardarro. cidda in la caabudo gar u leh, oo in loo sujuudo gar u leh, in gacmaha loo horsado la baryo gar u leh, in la tala saarto gar u leh, in laga cabsado gar u leh, in la rajeeyo oo la jeclaado gar u leh, waa mid keliya, laba ma aha.
in loo gowraco oo loo nadro xaq u leh waa keligii Allah subhanahu wa ta'ala taas horta waa la sheegay waa asaaska diintan ay ku salaysantahay waana macnaha la ilaha illa Allah macnaheedu saas cid kale oo hawlaha fargelin karto ma jirto la malaa'ig baan la siin karin wala rasuul baan la siin karin wala walaad qabri ku jiriya awliya la siin karin hawl la fargelin karama waa hawl ilaahi khaas wa subhanahu wa ta'ala annama ilahukum ilahu wahid wa hal kamid laba ma jirto saas macna laba male faman kana yarju liqa rabbi marka ninkii rajo ka qaba ilaahay la kulankiisa iyo aakhira inuu ilaahay la kulmi doono waxaad samaysaa amal saalix samee sheegad ma inaad tiraahdo muslim bana oo wax amal la imaanin maya amal saalix la imo haddaad rajo ka qabto ilaahay agtiisa inaad khayr ka hesho janno gasho cadaabna ka badbaado waxa lagugula talinayaa falyamal amalan saalihan amal wanaagsan samee amalku goormuu amal saalix noqda waa markii ruuxa sameeynaya uu yahay mu'min amalkana ilaahay dartii loola jeedo dana kale lagu wadanin qalbigaaga cid kale iyo dana kale midna ayna ku jirin tasaddexaadna sunnadii nabi maxamed markuu amalku waafaqsan yahay oo bid'a iyo wax gadaal laga yimid uu salaano ragjeefooda ay ka keensadeen amal noocaas ilaahay ula imoo subhanahu wa ta'ala haddaad kulanka aakhiro rumaysantahay oo darajeenayso waxaan amal saalix ahayn ku badbaadinayno ma intaas lagu gaabsaday ma amalan saalihan hadii lagu gaabsan lahaa waa ku filan lahaa shirkigu inuu meesha ka baxo laakiin si loo xoojiyaa waxa la yiri wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ibadada ilaahayna bariyadiisa tuugmadiisa cibaadada ilaahay uu cibaadeysanayna cid kale yuusan la wadaajin cid kale ha la wadaajin hayna gaaladii gaalnimadoodii baysaas gaalnimadu waa Allah iyo inaad adoomadiisa wax isugu darto dad baa waxay u qaateen gaalnimadu inay tahay alle inta laga tago bedelkiisa in kuwa kale la sameeyo isagana la iskaga tagaba taasi waa gaalnimo weyn laakiin waxa iyaduna gaalnimo oo diinta lagaga baxa Allah iyo khalqigiisa inaad wax wada wadaajiso oo ka dhaxaysiso gaalnimadii carabta lagu haystay lagu la dagaalamayna taan bay ahay labbayka la sharika laka labbayk illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malak sadirij ilaahayow cid wax kula wadaagta ma jirto mid wax kula wadaagood adigu leedahay laakiin isagu aan kula hayn mooyee way ogyiin ku wax kula wadaag kan wax la wadaagay wax la wadaajinaya way ogyiin ilaahay inuu leeyahay soo kii lagu yidhi ma mid ka mid a weli mise ilaah baad caabudaa kuwa badan xagee kala jiraan midna sabadu jiraa buu dhowrna dhulka joogaan markay balaayadu dhacdo musiibada weyn kugu habsato keebaad u kaydsataa oo isku hadlaysaa midka kor jira oo te kuwan maxay qabanayaan haddii kaa uun markay xaaladu ugu daran tahay la aado kuwan hoose maxay qabanayaan wadaadada markaad ku tiraahdo walaa yushrik biibadati rabbih ahada warcida ilayha baryin wuxuu ku leeyahay sheekhow hada waxa weeye ilaahay in cid loo simaro waa laga maarmaan war waa shirkigi ibadada ilaahay cid ha la wadaajin waa shirkigi quraysheed ilaahay cid ha loo simaro ha la caabudo oo ha la baryo baryadaada isagu ha u geeyo tawassul baa la dhahaa waxa weeyaan kufri waa كلمه وانا مسألة القرآن كقال ليه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا تنتجوج الله كلجي آت وكوف فيه سو إله كوف فيه سبحانه وتعالى يا ورم إله يدين دقوي مركز وذات شلت انت قبرك السعادة إنسان أما يعني وحوي رجال الله عباد الله رجال الله يذكر إنسان أما يا غوث الأعظم ما تذكر إنسان أما عبد القادر الجيلاني أما أويس ومرك تذكر إنسان الله ما يدين كوف الله يا الله سبحانه وتعالى أدونك سوى كفيني إذكروا أغباهن مجروا منك إلهي هايستا سبحانه وتعالى إذكروا أمباهن هذا الله هايستا سبحانه وتعالى لكن الله هدو قرب كاغا كبحو إذكو بدبانكر سمجر ولا جيلاني مانكو بدبانكر ولا أويسي يقوى كدر مانكو بدبانكر ولا أوريو هذا يسود كدر حقوق مانكرين مركا هنسلوك وينيني حداد إلهي إنا الله كل من سوكته منك ربي تشنك الدون يوم عذاب إنه كبد بعد الدور يوم توحيد كل ما إله وراتك سبحانه وتعالى شركي أديقنا أكل فوق هذا لكن ولاك كان كجوه هيا وحبا ما يتاج شرك معه وما يتاج توصل بالله ما يو إله ما نصل مرينا وركا ولاك كوش شيء وتاجر الدين تاذا كجر عسنا هي يوسف كل جوين وحلا جر عسنا أو لقيت تجاري استوحى أبو خطر سندك الدين تودي عقيدته هي آخره ما أبو خطر
wadaad kan diintii dadka duminahaya ee shirkiga ugu yeedhaya magac raadiska ah inuu isagu keliyata ama waxoogaa dadka ka helo ama magac ku lahaada dhexdooda intaa difaacanaya shirki iyo gaalnimada ummadda ugu yeedhaya wardadow yuusan idin lugoyn ilahay agtiisa waxba idinma qaban karo subxana wa tacala midka noocaasi macna qul waxaad dhahdaa nebiyow inamaa ana anugu basharun baana bini aadan un baan ahay oo mitlukum idinkoo kale ah xagga abuurka sidiinoo kalean ahay way macna yuuxaa waa la waxyoon ilaya aniga waxaa la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum midkaad caabudaani ee cibaadada iska lihi ilaahun ilaah inuu yahay macbuud inuu yahay waaxidun oo mid ah midka gar u leh in la caabuda xaq u leh waa un hal mid labaadi ma jiro faman ciddii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbigii la kulankiisa aakhara ninkii rajaynayo falyacmal ha sameeyo camalan camal saalixan oo wanaagsan istustuska ka ilaali camalka hadduu istustus gala isagana shirki baa galay oo nabigeena salawaatu rabbi wasalamu caleyh sida ka sugan dadka maalinta qiyaamada naarta loogu horraysiina waxaa ugu horeeya dadka istustusa caalim cilmiga u bartay dadkana u barayay ha lagu ammaano deeqsi xoolihiisa u bixinahayay ha lagu ammaano nin dagaalamahayo furinta ku jira u dagaalamaya ha lagu ammaano saddexdaasaa naarta ugu horrayn doona salaadaada iyo cibaadadaada marka allah keliya qalbigaaga ha ku jiro ujeedooyinkan adduunyada liita ka saar meesha falyacmal camalan saalixan walaa yushrik yuusan wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa iyo baryadiisa axadan cidna yuusan la wadaajinin hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasallam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam wasubxaanaka allahuma wabixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wanatuubu ilayk